waxaanu joognaa taalada dhagaxtuur waxa maanta halkan u xadhigay gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaankiisa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe isagoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka qayb qaatay waftigii sare gudida sare ee qabanqaabada maalmaha xurriyadda waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish waxa aan maanta ka soo qayb galay degmooyinka gobolka Banaadir oo muujiyay iyaguna shucuurtooda iyo kaalintooda maalmaha xurriyadda waxaan halkan rabnaa anagoo ku hadlaya afka gudiga qabanqaabada inaan salaa sharaf ka gaarsiiyo hambalyo iyo tahniyad dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa anigoo leh dabaaldeg wanaagsan xurriyad wanaagsan ciid wanaagsan joon wanaagsan waxaan kaloo inta ku darayaa in laga wada qayb qaato la muujiyo shucuurta dalka waxa ka jira xaalad abaareed oo adag labada gacanna waa ku dabaaldegaynaa gacanna abaarta wax kaga qabanaynaa waxaan gaarsiinaynaa meelaha gargaarku u baahan yahay sidoo kalena waxaan muujinaynaa calanka iyo xurriyadda iyo qarannimada waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed ee maanta ka soo qayb galay munaasabadan ubax dhiga iyo weynaynta 26 Juun waxa inoo soo socda 1 Luulyo oo ah maalintii Israaca waqooyiga koonfureed maalintii midnimada iyo maalintii weynada qarannimada oo iyagana aan rabno inaan xusno dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay weyneeyaan dabaaldegaan oo soo baxaan oo farxaan oo muujiyaan macnaha ay leedahay xurriyadda qarannimada iyo Soomaalinimada iyagoo calankooda kor u haya aad baa mahadsantiin bahda saxaafadda iyo qabanqaabiyaasha xafladan gobolka Banaadir ugu horeeyana waxaan leeyahay waa mahadsantiin hambalyo